madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo xisbiyada qaranka ee Soomaaliland iyo sidoo kale gudida doorashooyinka ee Soomaaliland waxay maanta ka hadleen arrimaha doorashooyinka iyo waliba abaaraha ka jira deegaanada Soomaaliland. wariyahayga Maxamed Faarax Coomaade ayaa warbixintan magaalada Hargeysa inooga soo diray. madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa xarunta madaxtooyada waxa uu kulan kula yeeshay musharaxiinta saddexda xisbi ee Soomaaliland iyo sidoo kale gudiga doorashooyinka. kulankani ayaa daaranaa isla markaasina diiradda lagu saaray sidii loo kala furdaamin lahaa doorashooyinka iyo xilligan abaaraha oo isku soo beegmay. waxaana kulankaasi oo in muddo halkaasi ka socday markii uu soo dhamaaday warbaahinta la hadlay madaxweyne xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici waxaanu faahfaahiyay waxyaabihii halkaasi lagaga wada hadlay. shirkaasi waxa lagu lafguriyay xaaladda maanta ay haysata oo ka warqabtaan waxaan soo si kooban ku sheegaynaa in go'aanka shirkaas isku qaatay uu yahay koow oo la isla gartay sidii horeba isku garteen saddex musharax ama saddex xisbi qaran isla garteen in dalka duruuf adag u galay oo abaar adag dhacday sidaas darteedna aynay suurtagal ahayn in doorashadii inoogu mudaysnayd isha saddexaad ee sanadkan 2017 in waqti loogu talagalay duruufaha xagga la ka yimid awgeed aynu qabsoomaynin. tawa madaxweynaha uu la waafaqay saddex xisbi qaran hore iyaguna soo waafaqsanaa. waxa kale oo la isku waafaqay in mar labaad komishanka qaranka iyo saddex xisbi qaran isku soo noqdaan iyadoo qolo walba dhankeeda ka soo baaraan degayso si aynu mar labaad inoogu noqon kacakuf muddada ugu habboon ee maarta laga bixi karo xaaladda adag aynu galnay. Maxamed Faarax Coomaade wararka warbaahinta SBC Hargeysa.